munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhalinyarada aqoonyahanka macallimiinta iyo abwaanada iyo guud ahaanba waalidiinta ardayda ku rabaysan dugsiga tarbiyadda carruurta ee biis ayaa maanta ka dhacday hotel xaaji askar waxaana munaasabadan goobjoog ka ahaa kormeeraha dugsiyada wasaaradda waxbarashada ee gobolkaasi Gabiley. munaasabadan oo intii lagu guda jiray arday aad u da'yar soo bandhigeen nashiidooyin qiiro iyo dareen geliyay dadkii ka soo qayb galay iyo waliba waalidiinta dhalay ubadkaasi. haddaba ujeeddada xafladan ayaa ahayd sidii loo dhiirigelin lahaa ardaydii sanad dugsiyeedkii tagay ku guulaysatay kaalmaha hore waxaana dhammaanba mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadalladoodii ka mid ahaa. sida u jecelnahay waxa kaliya ee lagu ilaalin karaa waa aqoonta ama waxbarashada kasoo korinta iyo quudinta ay ubadkeena quudinayno iyadoo taas laga duulayo ayaa dugsiga barbaarinta ee biis waxa uu hawlgalay sidii uga jawaabi lahaa baahidaas loona heli lahaa barbaar aqoon leh aqoontaas oo la jaan qaadaysa da'dooda. waxaanu qabanaa ama qornaa dugsiga ilmaha jira 2 sano iyo badh aad baad u yaabi doontaan carruuraha qaar aad biis ku arki doontaan oo asleedin markaad aragtaan ilmaha xataa Soomaali ma garanayo haddana waad arkaysaa nashiidad uu qaadayo carruurteena inaga guriga dib ugu hayna oo moodayna ilmuhu hadii guriga laga saaro inuu dhimanayo laakiin ilmaha marka guriga laga saaro waxaad arki doontaan inuu noqonayo qof isaga oo yar isku tashanaya. sababta ay barantiin waxa taasoo Soomaaliland waxaad moodaa malaha inay carruurtu yiraahdo hooyo adigu na raac aabba iska joogay مسافة مسافة يا شباب من تدار وقته أما أرتدي هذا وطهو يقول راح حفلته أما أبي مهم مش هبايليه هو يكلم لبا تلوم مصيره يري أي ميرها وقدرا أي تعبنا يعني يكون قطعي معجزه dadka meesha fadhiyana aad ayay u yaabeen dhamaanteen waynu fijacnay kuwa yaryar ee intan leeg ee sidan wax u sheegaya ee sidan wax u akhriyaya waa la yaaba way nagu noqoto anigu waxaan u malaynayaa dhamaanteen haddaan xaflada ka qayb galay maynu arag ilmo yar oo intan leeg oo isleedahay mashan jirba war malaha waa la afarti isha macallina bay Soomaalidu tiraahdaa ujeedada himilada iskuulka waxaanu doonaynaa inaanu soo saarno arday tayo leh oo dalka wax u tarta mustaqbalka wadankana qayb libaax ka qaadata insha Allah ta'ala waxaanu u xulanaa macallimiinta kartida iyo aqoonta ay leeyihiin si ay noogu soo baxaan arday mustaqbalka midhadhal keeni kara oo wadankooga anfici kara. waxaanu doonaynaa inaanu waalidiinta u sheegno oo aanu uga faa'iideyno ay ka faa'iidaystaan waxbarashada qiimaha ay leedahay in ay ogaadaan oo ay ubadkooga kula dadaalaan meesha ay waxbarashadu taalo. waynu ognahay waalidku wuxuu jecel yahay in ilmihiisu waxbarto mustaqbal yeesho. waxa uu shaqeeyaa 2 qaybood oo aad u kala duwan ayuu shaqeeyaa qayb waa qaybta barbaarinta oo la barbaarinayo ubadka yaryar ee aad arkayseen wacdaraha ay ka muujinayeen kooxda waxbarasho ee ay halkan wixii lagu soo dhigayay ay ka muuqdaan. qaybta labaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe ilaa dugsi sare weeyaan waliba gelinka dambe waxa sii shaqeeya dugsi dhexe iyo dugsi sare. wallahi dugsiga iyo macallimiintiisa waxa ku amaanaya oo leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin halka amaantaynana haysdiganine aqoontiina inta sare u sii qaadaan ubadka maanta aan arkayno beerta aad beeraysaan macallinku lacag ma qaato laakiin magac buu qaataa adduunyada meel kastuu tago beertuu beeray buu ugu tagaayo manaafaca waa isaga. وعبد الله ظاهر تلفزيون كعالمي Somali Channel magaalada Gabiley.